ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya oo hubeysan iyo gaadiidka dagaal ayaa caawa waxa markaasi la hordhigay guriga oo markaasi uu degan yahay madaxweynihii sagaalaad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waa Shariif Sheekh Axmed. waxaan kula wadaagi doonaa wararkii ugu dambeeyay iyadoo bishan Biriko ay mucaaradku afarteeda doonayaan inay markaasi barnaamij ka qabtaan magaalada caasimadda ee Muqdisho balse dawladda federaalka Soomaaliya si waliba waxay uga soo horjeedaan inay barnaamijkaasi baajido caawana waxa gaadiidka gaashaamay ciidamada dawladda waa markaasi lagu hareereeyay guriga oo markaasi magaalada Muqdisho ka degan yahay Shariif Sheekh Axmed madaxweynihii toddobaad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. sidoo kale muuqaalkan waxaad ku daawan doontaan Saacdiye Bajaad oo ahayd gabar markaasi ka shaqeysata magaalada caasimadda ee Muqdisho oo dhawaanahan ku markaasi ku xirneed magaalada caasimadda ee Muqdisho oo bari ka soo muuqan doonta waa maxkamadda gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho iyadoo loo diiday inay ka soo muuqdaan ama ay tabiyaan waa warbaahinta madaxa bannaan. haddaba maxaa qarsoon muuqaalkan ayaad ku daawan doontaan. soo dhawaada daawadayaal, taariikhdu waxay ku aasaysan tahay 31 bisha May ee sanadda 2026. haddii aynu ku bilowno ciidamada dawladda Soomaaliya gaar ahaan ciidamada madaxtooyada oo hubeysan ayaa caawa markaasi waxa lagu hareereeyay guriga oo magaalada caasimadda ee Muqdisho ka degan yahay Shariif Sheekh Axmed madaxweynihii toddobaad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. arrintan ayaa waxay ku soo aadaysaa iyadoo bartamaha bishan gaar ahaan 4 Juun ee toddobaadka soo aadan mucaaradku ay doonayaan inay barnaamij ka qabtaan magaalada caasimadda ee Muqdisho. madaxda ugu sareysa dalka ayaa si weyn waxay uga soo horjeedaa barnaamijkaasi iyadoo markaasi doonaysa inay si waliba ay ka hortagto barnaamijkaasi si ay uga baajileed mucaaradka oo bira tumanaya inay barnaamijii ugu dambeeyay ay ka qabtaan magaalada caasimadda ee Muqdisho. Shariif Sheekh Axmed madaxweynihii toddobaad ee Jamhuuriyadda ku-meel gaarka ah ee Soomaaliya oo si weyn markaasi ugu ololeeya arrimaha mucaaradka si weyn uga soo horjeeda dawladda federaalka Soomaaliya ayaa caawa waxa la hareereeyay ama gurigiisa la dhigay gaadiidka gaashaaman ee sida weyn markaasi uga dagaalama gudaha Soomaaliya. tani waxay ku soo aadaysaa in dawladdu ay markaasi si weyn uga soo horjeedo waa arrinta la xiriirta inay mucaaradku barnaamij ka qabtaan magaalada caasimadda ee Muqdisho waxayna markaasi kabi ahaanba ka soo horjeedaan barnaamijkaasi. Axmed Macalin Fiqi waa markaasi oo si weyn u taageersan dawladda federaalka ayaa isagu markaasi maalinimadii shalay ahayd waxa uu sheegay in cid markaasi barnaamij ka qaban karta magaalada Muqdisho aysan jirin. Cabdiraxmaan Cabshukuur Warsame iyo markaasi madaxweynaha Puntland iyo madaxweynaha Jubbaland iyo madax kale oo ku jirto xubnaha mucaaradka oo kamid yahay Xasan Cali Khayre ayaa iyagu waxay doonayaan in barnaamij uu ka dhaco magaalada caasimadda ee Muqdisho. caawana waxa markaasi gabi ahaanba la hareereeyay oo inuu baxo loo diiday madaxweynihii toddobaad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo isagu markaasi hotel Xalane agaarka hotel Xalane ka degan magaalada caasimadda ee Muqdisho u dhow garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdulle International Airport ee magaalada caasimadda ee Muqdisho. tani ayaa ku soo aadaysaa iyadoo dawladda federaalku ay markaan u jeeysanayso inay dagaal la gali doonto xubnaha mucaaradka ee markaasi si laciifaya oo doonaya inay qalalaaso ka abuuraan gudaha Soomaaliya. waa hagaag dhinaca kale haddii aynu eegno biri waxaa maxkamadda ka soo muuqan doona Saacdiye Bajaad oo ahayd gabar muwaadinad ah oo markaasi ka shaqeysata gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho. gabadhan oo muddooyinkii u dambeeyay ku xirneed xabsiyo ku yaala gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa markaan waxay ka soo muuqan doontaa waa markaasi xabsi ayraadi waxay ka soo muuqan doontaa maxkamadda dalka iyadoo loo diiday inay warbaahinta gudaha ay si weyn u tabiyaan arrintan markaasi la xiriirta in Saacdiye Bajaad biri maxkamadda la soo hortaagi doono. gabadhan oo markaasi si weyn uga soo horjeeda dawladda federaalka waa markaasi si adag uga hadashay caburinta bajaadleyda lagu hayo iyadoo markaasi oo sare u kac ku yimid qiimaha shidaalka kadib dagaalka ka soconaya bariga dhexe ayaa waxa la soo xiray iyadoo markaasi hadallo xanaf leh warbaahinta marinaysay waxayna dawladdu ku eedeysay inay kicin markaasi bulsho ka wado gudaha magaalada caasimadda Muqdisho. gabadhan oo muddooyinkii u dambeeyay ku xirneed ayaana markaasi xabsiga dhexe ayaa biri maxkamad la soo hortaagi doonaa iyadoo markaasi ay dawladda federaalka Soomaaliya ay ka qarisaba inta badan xubnaha markaasi warbaahinta madaxa bannaan oo si weyn ay cabrun ugu haydo dawladda federaalka Soomaaliya. sanadkan gudaheed ilaa markaasi 5 wariye ayaa lagu xiray gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho.
sidoo kale dowladdu waxay markaasi ay diiday in markaasi ay warbaahinada gaarka loo leeyahay ay ka soo muuqdaan gudaha aaraada waa kiiskan oo ay bari dhageysan doonto maxkamadda darajada koowaad. haddaba halkan haddii aad nala soo gaartay aad baad u mahadsan tahay, muuqaalka like garee oo meel fog gaarsii naguna soo biirsa u hesho xogii ugu dambeeyay ee markaasi gudaha Soomaaliya. aad baad u mahadsan tahay.